Dadka qisooyinka way ku kala xanuun badan yihiin. Qof walibana waxaa laga yaabaa qiso gooni ah oo noloshiisa la xiriirtay inay soo marto. Waxaa suuragal ah qisada inay dib kaaga dhacdo, khaasatan in adigoo nolol samaystay, farxadna ku guda jira in mar qura noloshaasi ay isbedesho. Hooyadan waxaa lagu magacaabaa Faadumo Buraanbur. Dadka badi waa yaqaanaan magaceeda iyo codkeeda. Laakiinse waqti ka hor waxay ahayd hooyo si weyn bulshada Soomaalida kaga dhex muuqata, khaasatan Soomaalida ku nool qurbaha siiba Yurub. Balse hooyadan waxay la kulantay horaan dhibaato adag oo xagga nolosha ay ka martay. Waxaa laga qaatay hooyadan caruurteeda, laakiinse waxay wajahday xaalad xanuun badan wixii intaa ka dambeeyay. Xitaa iyada laftirkeeda ayaa ku sigata xabsi in la dhigo. Laakiinse waxay ku badbaaday xagga waalidkeeda, khaasatan aabaheed oo si weyn ugu soo duceynayay xilligaasi. Ducada aabaheeda ayay kaga badbaaday iyada dhibaatooyin badan oo ay sii mari lahayd, laakiinse caruurteeda ayay waqti badan gelisay sida ay ku heli lahayd, maadaama awlaad ay dhashay laga haystay xilligaasi. Dalkay ku nooshahay dowladda waddankaasi ayaa la wareegeen caruurteeda, iyadana waxay samaysay dadaalo badan oo la xiriira sida ay ku heli lahayd awlaadaasi. Dadka qaar waxaa laga yaabaa, khaasatan waalidiinta, inay ku dhuftaan ama waali ay ku sigtaan, balse iyada waxay ku badbaadaysa mar waliba xagga cibaadada way aad ugu tiirsanayd. Si kooban ayay hooyadan oo lagu magacaabo Faadumo Buraanbur sharaxaad kaga bixinaysaa qisadii qabsatay iyo sidoo kale nolosheeda halkii ugu adkeyd oo ay soo martay. Inkastoo qisadeeda markay ka sheekeynayso mararka qaar ay ilmeynayso, waxay dardaaran iyo fariin kooban ay la wadaagaysaa Soomaalida ku nool qurbaha iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed. Laakiinse fariinteeda inta la gaarin, hooyadan qisada ay soo marta marka laga tago waxay tilmaamaysaa in dad Soomaali ay ka dambeeyeen in noloshan xanuunka badan iyada ay aragto ama ay guda gasho. Waxaa laga yaabaa mararka qaar inaad is leedahay dadka aad la nooshahay ama kugula nool magaaladaad ku nooshahay inay yihiin dad wanaagsan oo garab kuwa adiga dhib walibana kula qaybsanaya, in mararka qaar ay dhacday in dadkaas ay ku horseedaan dhibaato adag oo adigaadan gacmahaaga ku keensan. Inkastoo wax waliba qadar ay yihiin, laakiinse qisada hooyadan waxay noqotay mid xanuun badan. Waa markay ka sheekeynayso dadka qaar ay la ilmeeyeen. Faadumo, waxaan rabaa aniga Faadumo in aad iga dhaxashaan hadal dhaxala oo beri haddaan dhintano Ilaahay subxaana qaadirka abaalkeeda isiin doona, haddaan noolahana aan leeyahay. Waxay tahay intii itaqaana intaan aqoonin laga yaabo inaan isku kiinbara si kale, sida magacaan weyn aan wato oo ka horeeyay qadarta ii timid. Waxaan ahay gabadhii buraanburayso ilmaha laga qaatay. Waxay igu dhacday sidaad ogtihiinba qadartaas Ilaahay subxaana qaadirka ii keenay 2019 bishii 9aad 13 caawana waxaa ka dhiman bilooyin la tirinaya. Alxamdulillaah waxaan haystay caruur aad u qiimo badan, alxamdulillaah. Guri aad u buuxan ku jiray, sidoo kale sawj. Waxaanan cad iyo madow baan cunaynay. Waxaan rabaa in dadka aan aqligooda iyo qalbigoodaba aan la dego insha Allah. waa ujeedaa inaan sawzow nagu dhacayo aawaana aakhir zaman sida loo sheegay. iimaankaas Ilaahay baa iska leh oo kugu sugi karo, aniga malihi, laakiin Ilaahay ila doortay. islaamka ducadoodina waxaan dhaxlay ka mid noqotay, alxamdulillaah, iyo ducada waalidka. soo markaa wax iga maqnaa ma jirin, hal mar unbaa qadartaa ii timid, waana shaqaysanay. nolosheedana wax qurux badan ay ahayd. dadka qaar baa wax isku qasay, ciir kumaana jirin. aabi hooyo isgarab galay ahayn, xaajigayga ay keensaday Yurub. qadartaa baa ii timid. qof waxaan ahaa businessna waday, qof waxaan ahaa wiigii la sugayay inuu nastoba, sida aan lacag u xisaabinayay. subxaanallah, alxamdulillaah. hal mar ayuu gurigii wuxuu noqday gobolkii u dhacay, qadar Ilaahay ku timid. waagiyaa noo bariyay, mugdi iyo xero maranaan soo fadhiisana. markaas baan Ilaahay amarkiis walwalay. Ilaahay baana iiga marqaatiya. aabahay markaa maasha Allah, Ilaahay ii deysto, waa dhaqan yahay ilaa hadda, waa loo dhadhalaya, cimri dheer Allah ii siiyo. hooyaan ka walwalay oo aanan markaasna madina ku ahay, curadna u ahay. isha kaliya waxay sugaysan anaa. markaan soo noqday waan walwalay, alla hooyo yaa u maqan oo kale. alxamdulillaah, Ilaahay ma dayicin, anigana markaas wax yar baan haystay.
على كل حال وجيتك أن دمرك ولا لبع بدنا شيطان كان وبدن وين شيطان كسكنارنا عقلك إن إيمان كنا أن لا درسي نواعي عقلك قاضو ولا شاكو جرا إيمانك هذا نقوله عقلك هذانا بطاطن دين قدر على كعبسينا هكو ديرادو مركز waxaa igu dhacday qeyrkaad aragteen waxay isku dayeen in shaqadii odayga laga joojiyay baskii oo kale anigii aan fariistay oo shoogay oo aanan waxba tumi karin oo aanan xatii nuuxsan karin oo waxna gadi karin calaa kulli xaal noloshii gurigayga xatii dikam in laga dhigo alxamdulilah ilaahay baa bariyay labaa markii ilaahay ka bariyay aabba isoo wacay waxaan ku yiri aabbo hee buu yiri aabbo ii soo duceey waa kuu soo duceeyuu dhah aabbo waa walwalsanahay waxaana ka cabsanaabaa eri in la xiri doono because aabbow beenti waa badataa eri waa kan maxkamadii koowaad xaq darro cad nagala qaate oy markhaati keeneen caawa dumarkan u wadaa warkaas ragga siday isku dhiibaan waa adagtaa annagaa jilcan annagaa 12 waji leh ilaahay uga cabsada waalidkiin ilaahay uga cabsada si aad irid ilaahay inuu furo bis markaas yiri aabbo oo yiri xalaal kuuma dhalin laba kelmado ii weydi marka aabbo u dhahay ma dishay gabadha maya aab ii aamin soo ilaahay kuluma ogo ha aabbo okay aabbo yiri haddana habeenkii kale uu soo noqday wax ma cunaa la yiri aabe ilaahay aamin anigana ii aamin haddii lagu xiro yiri xalaal kuguma dhalin wallaahi suma wallaahi oo caawa ilaahay adduunka mar dambe iguma barbaariyo qabow baan dareemay beerka dhulka ii jiifay waan soo kacay markaas wuxuu i faray ducooyin badan oo aqoonin ani been ma sheegayo xogo adduunyo siiyay haddaan soo noqday ducooyin marka uu akhristay buu ii sheegay oo aad iyo aad aan ugu najaxay iyo inaan ku celceliyo intaasoo kun oo sali iyo ducooyin badan adkaar badan oo ii sheegay endo iyo aayadaha quraanka aayada loo akhrista gaalada alxamdulilah aaba ma soo bisaa hadda intaas iga balan qaado yiri haddana riyaal lagu tusay oo yiri ma akhrisu yiri inaan been u sheegay intuu arkay aabaha oo yani waa sasanahay oo ilmihii baa la shoogsana habeenkii kale uu soo yiri aabahe xalay maada aqri ka walwalka ka dhamaanay haye aabo waan aqriya alxamdulilah waan najaxay intuu ii diro dhan aaba iyo ducooyinka adkaarti dhan waa aqriya markaasuu uu dhahay haddii lagu xiro waa mar kale haddii lagu xiro dhah aaba kuma dhalin aniga alxamdulilah waan aqbalay so easy man waalidka ilaahayna been nooma sheegin ilaahay uga cabsada waalid maxkamadii markaa tegay baa la yiri cidii marqaatiga oo carabta oo ilmaha iga hoday aa la waayay soo noqday booliiska gabadhii wax gacana kuma taalo wax oo gacana ilmaha gabadha sheegata dhibka ma ku yaalo okay handa alxamdulilah sharciga maana aqooni waa ku cusbeen waligay social eer ma tagin markaas ilmaha wax ila noqoto shock waa waxaan dad badan ka caawiyay dad badan laba bari ka hor gabadha caawiyo kale alxamdulilah fadli rabbi ilaahay wada ma hadale wax ma awoodi ilaahay baa ila doontay alxamdulilah bis maana aqoon cunugta reebanayna maya ku dhah waan diiday ka bacdi saasay sharciga xooga ilmaha ku ansaxsadeen calaa kulli xaal anigana hadda umad badan uga faa'iiday alxamdulilah oo aan dhaha hal ma la qaataa saas meeni dheenaha nasiibay ku dhaha taas saxiix taas kaaga ekaatay sida kuba kale kuugu badbaadaan ani waagaasna qof ka hadli jiray ma lahayn qofka oo shay ilmaha laga qaatay jiray ma dadka dhan waa isqariyeen markii ilmaha laga qaatay ani waxaan helay dad ii duceeyo waxaan helay iimaan igu ilaahay igu suga alxamdulilah islaamnimada haddaad يعني إيمان كذا أبوح إلهي وحمدي ور إلهي كحمدي الحمد لله ده إلهي وكبوحنا يا بس وإمادي محكمة ديالوي وحليري وحكم عدو وحرق شغلكم لها إذن الحمد لله يا الله والله وان إمادي ورقا إمادي محكمة دي سيدي يقول سعدين
kabacdi uu aabba dhaha aabba walwalaa kaa dareemaa isdeji hooyadeen horta wayba iska xanuunsataba markaas aan ku iri aabbow hee waxba iguma caddaa layiri alxamdulilah mindhaa waa idaayano sidaasaa dhacda okay haye aabbo uu dhaha hal kelmad marka uu asaga hadalka laga badiyay amee aabba aad wax suubiso maya haddaad wax suubiso laguma dulminaha anigana waa ku aqrina adna aqri waxaana balan ilaahay la galaa yiri aabba inaan kuu soo jeedayo kuu qalweyn doono kuu wardin doono qalwada dadaa qalad u arki doono yacni inaan ilaahay kuu bari doono xilliga shaqalta ay danto aan kuu soo jeedaa aabbahay hooyaday waxay iigu dhaaratay inuu 40 daqiiqo oo sujuudda uu ku hayo qoorta wallaahi gaaskii ku dhacay naxdintii oo ka qaadanay ilaa hadda oo aabbahay beerkilaya marka waagaas sow dadkii iisiisanaya waa u sheegay waxaan ku yiri ilaahay uga xishooda waalidka calaayi kulli xaal marka mid kalena waa igu dhacday hadda dhow Soomaali baa ijaajuustay gaaladii markii aan ilaahayga qabtay dadaan u filaynin walaal ka dhiganayay ayaa nolosha yarta iyo dhaqdhaqaaqa yarka iyo qoor waay markaas YouTube ka dheen ilmahayga dheen aniga hadeen daba kaceeno gaaladaba ila darseen bas subhanallah waan ku riyooday waan waswaasay waalidka u sheegay markaas waxay rabeen in wax lagu xiraa ballana bay dhaheen hadalladana waa isoo gaagaaray wax yarna dumar iska ahaayeenoo aqligooduna ma badnayn iimaankooduna ma sugnayn markaasaan waswaasay aabbo yiri aabbo hee marka si aan u aaminay aabbayaa nii sheegaa waalidkay sidaan u yaqiinsado u sadaqay waan ku celiyey aabbo aan dhahay waa lay daba kaca suura adaa ka soo reynaya adiga ilaahay ha ka fogaanin ilaahay u dhawow xilliyada aan ku farane u dhawow hayaa ku iri saacadaas aan la hadlaa inta hadlaysin aniga waa wardinaay tusbaxa aniga iyo ilaahay iyo qol aan ku xirana alxamdulilah haddana waxaa la damcay lacag in lay korsa ku xirnow mar waliba Sharmarka Media.